السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن أو ونكسن داوديال دمانتين با كسر دوادا برنامج جارا أو أي نكسو قادني دونو دق جينكا علشا لجو ورابيا أو سوق دي بيرتا وين الله نحرسته كهدي مرحوم حسين عينان السجولة داوديال دقدن جينكا أيا وحا بيرتن وجود دقي مدن عمر حاج نور سجال جيلي ودجن دلكا سويدن deeqdan oo soo gaadhay beerta kadib baahi motor oo aanu baahinay dhowr bilood ka hor daawadayaal waa kan maxamed xuseen caynaan oo beertaas isagu haatan ka masuula oo ka mahad celinaya deeqdaasi daawadayaal deeqdan oo ahayd $300 Mareykanka ah ayaa waxaanu ugu talagalay inaan ugu soo iibino sida uu isagu noo sheegay motor qiimihiisu dhan yahay $300 isla markaana ay markii lacagtii soo gaadhay ka badatay oo ay noqotay $450 taas oo isagu soo amahday $150 ee dheeraa waxa uu dhacay sida tan ee daawasho haboon maxamed cawaala igu yimiday wallahi iyo maanta isku maartay farxadnay maanta ayaa iga farxad wanaagsan tahay waayo maalintii waxa la haystay maartay mishiinka yar baan haystay imaatigiisii iyo hawshii oo maartay carab ii galay mishiinka weyn baan maartay maanta ku helay maartay ninkaas maartay nuur sugal waan aad iyo aad madan ugu mahad celinaya Umar 300 buu soo diray aniguna $150 baan soo amaaday waan ku darsaday mishiinkii waan soo iibsaday $450 buu noqday ha noqdo laakiinse bilaa tuumbooyin buu iga yahay markaad tuumbadii hore ay yareeyeen haystay iyo tuumbadiisan ismay noqonayaan labadii ma garanaysaa tuumbo marka tuumada weyn ma haysto de waxaan ka codsanayaa walaalayaasha kale inay iga soo bixiyaan maaragtay tuumbada kale ee mishiinka weyn ama 100 ka takaba ama de 100 ka takaba ayaan rabaa aad iyo aad ilaahay de aka abaal maryadeed Umar Nuur sugan Allah ka abaal mar adiga intii de ka qayb qaadatay isaga intii kale ka qayb qaadatayba Allah ka abaal maryaan leh ana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay awal daabno soo gaarsiiyay aad iyo aad bii soo gaarsiiyay maxay awal daabno ii soo gaarsiiyay marka horena dad sababta way isaga ilaha oo halkan ii yimid oo hawshan ii galay uma yeeran uma tagin ma garanaysaa halkaas ka dhax fadhiyalkaas ii yimid marka isagana wallahi Allah ka abaal marshaan leh waayaan intaas ka baxaya waan wanaagsanahay Umar iyo inta kale walaalihii la joogtaba annaguna soo kaasoo beerto ay ka qaribnay soo daryeelay waan ku faraxnay ilaahay ka farxiyo iyagana jannada Allah kaga farxiyo leeyahay maxamed awaala daahirna kolka horeba isaga ay soo gurmaday buu leeyahay gurmadka igu diray buu leeyahay maxamed xuseen saabu ku mahadnaqaya dhammaanteena waan u mahadnaqaynaa ka gurmadka hore lahaa iyo intiina gurmadka dambe lahaydba waxaan u mahadnaqaynaa haddaan ahay xuseen aadan xoosh haddaan ahay oo ka mid ah beeraleyda waad mahadsantihiin walaalahayaa kalowna waxay gurmad iyo gargaar noo soo heli kartaan waad noo soo tuuraysaan waxaad ku mahadsantihiin waan islaamaya hay-adaha wax soo ururiya dhulka soo marayay beeraha qajeelada nama soo gaaraan oo nooma yimaadeen halkani wax loo diiday ma garanayna annagu waxaan leenahay mid loogu jirto noo soo hogaaminaysaan inoo jirin saa daraadeed waxaad noo heli kartaan dambana noo soo caawiya magacaygu waa muumin waaliye qamaan degmada waxaan beeraleydaan ka mid ahay xariirad iyaan ka mid ahay sidaa weeyi waa sida walaalaha kale ba yiraahdeen waxa weeji tawa horeysa ee koobaad waan in mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinku faraxsanahay gargaarka aad noo yeelateen maxamed daahirna noo tabiyay inagana aad soo gargaarteen waan idinku mahadnaqaynaa waan ku faraxsanahay dad walaalo leh oo la garab qabto la tiiriyay baan durbaba ka mid nahay oo maanta aad baan niyadu noogu dhisan tahay walaalaha kala dhameeyay iskaashatay baan samaysanay haddaan nahay degmada xariirad iyo beeraleyda haddii aan nahay sida ay yidhaaheen hay-aduhuna nama soo gaadhaan wax naga haysta mooyi xaggaa unbayna soo dhaafin marka meelaha lagu sheegana wayna dhaafaan oo meelo kale unbay tagaan
sidaa baan annagu xagga cadaadinta abaaban kaga jirnaa cid garab qabashaa kama haysano cid noogu jirtina ma jirto dee macnaha oo shaqaalo ka shaqayso oo la socoto ma jirto noo soo hogaamiso na tustin ma jirto kolka teersimaan u baahannahay gurmad baan u baahannahay dee beeraha iyaguna way naga dayacan yihiin qalab waxba uma haysano mashiin uma haysano tuumbooyin uma haysano niyad baan haynaa oo dee niyadda umaan ku dhisannahay dee idinkana warkayagu inima soo gaadho maanta horteed inimaba soo gaadhin oo wax cabasho oon idiin soo dee tabisanay ma jirto dee haddeed waxaan leenahay walaalaha iyagu inayna garab qabtaan oo ina teeriyaan iyaan doonaynaa dee waanad mahadsantihiin annaguna wixii karaanka iyagaan ku darsanaynaa dee sidaa iyo salaamu calaykum gebigiinaba waad mahadsantihiin waa nigu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore walaalayaal magacay waxaa laga diiriyo bira subagle oday aakhira caadi loo yaqaana ilaa dabadda inaad geysaan baaban rabnaa waxa weeye maxaad magacaaga barashada ku yiri diiriyo bira subagle ay maxaad ku magac dheertay oday aakhira lagu magac dheeriyo ay oday aakhira dad badan oo dabadda ka gartaa inuu wajirayaan baan malaynaya haddii dadka qaarkii ciisaa la dhex geeyay waxaana ka tirsanahay beeralayda xariirad sida ay walaalahayba soo sheegeen maanta ka hor hay'ad iyo cid tolkaya ama qurba jooga ama ummad kale oo beeralayda wax noo qabata ma aragno had waan dayacan tahay aad bay u dayacan tahay ha ugu horeeyo cumar nuur sugaal oo maanta noo soo maxamed xuseen caynaan u soo diray mishiin $300 $400 iyo konton isagoo ah mishiinku 150 kiina aan amaahana iskaashata ahaan haddii aan dee walaalahayo ay naga bixiyaan iyo haddii aan annagu awood u helnaba iminka saa annaga amaahanay waxaan ka codsanaynaa walaalahayo $300 annaga u sheegnay mishiinkiina wuxuu noqday $450 bilaa tuumba ilaahay mahadi inagana waa nin mahadnaqaynaa gaar ahaan cumar nuur sugaal iyo walaalaha kale ee qurba joogta ee walaalahayaaba aadna waan ugu faraxsannahay waxaan niga codsanaynaa intaa in ka badan inaadna soo tartaan oo indhaha dadka u furtaan waddanku sidii uu ka firfircoon yahay beeraley buu leeyahay ganacsi buu leeyahay waxyaalo caynkaas awoodii baase dawlaannahay intaa inaad naga soo taageertaan iniguna ayaa naga codsanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigana waan nin mahad celinayaa maxamed cawaale daahir ahaan maxamed cawaale daahir baana codsiga iyo xidhiidhinta ayaa noo yeeshay oo waxtarka maanta aad uga mahadnaqayna waan aniga lafteeda nin mahad celinayaa diiriye oo ku magac dheer oday aakhiro ilaa yaraanteedii waan garanayaa waa runtii muumin waaliye qamaan isaga laftiisana waan garanayaa maxamed xuseen caynaan sigulle waa ninkii aan halkan ugu imiday sheekh xuseen aadan isaga laftiisu wuxuu ka ay walaal yihiin haddaan iskiin baro muftigii weynaa ee allaha u naxariistee sheekh maxamed aadan ee magaalada xariirad sidaas darteed waxay maanta beeraleyda halkan idin soo marinayaan hambalyo iyo salaan kashka iyo laabta waxa kale ay soo raacinayaan mahadnaq ay ka soo jeedinayaan mooteerka $300 oo markii hore maxamed xuseen ii soo sheegay isaga oo farxaddii mijiinkii soo baayacday baa lagu lidiina kii ugu liitay marka أو يسوي أو يشجع قيميسي أنا أقول عن عمر نور سجال سيدي وقول شجع صدق في بقول إسلام مركان أو عمر نور سجال صدق في بقول صادري بل سمركي دم بقى ده أنا كور قال لي إن الموتور كي سهل له وحكي فرصة وإذا الموتور كي هنتداها إنه نقضى بقول إيه كنتن $1 كأمريكان كأ ساسي درت محمد حسين وإيش جاي أنا قال لفت يدو ما نقارنين عمر نور سجال وانكل عليي أفر بقول كنتن مو نقضي بل سم محمد وحولي طلقي ما ندح قالي إن أدينا كوسو مهد علني أبان كوري مرتي نمان كاس كاشتة هرتي نتاجن وحيس كنت جين بقول كنتكي ولا صوام هذي لعقت وحان هي مدبل يا برقة أنت هذا حنور هذين إني بقول كنتك $1 عيبنا ونقول نقطين أنا هدنا أنا ناصب بيريا محمد حسين وحكوا دي في إنه بقول كنتك حريرة كسميو سيدنا هو أما هذي وحا شيخ حسين يو مؤمن واليه يو أضي آخره أو إسكاشتة أو أكوا هرتي نكشجيا haddii aad walaalahayow farxadda ay tilmaameen maanta aad kala soo qayb gashaan boqol ka tukaan israacsantaana tuka weyn un bay ku sii mahadnaqayaan waxa kale oo ka dhiman tuumbadii ceelka ka soo qaadaysay biyaha mooteerkii waa ka wad istaadeen oo wad arkayseen tuumbada yar iyo isma noqonayaan tuumbadii weyneed taa lafteeduna waa baahi meesha taala balse kama sugayna uun qurbaha dhul badan oo ilaa imika gallay baa jira oo codsiye geynay waana rajaynaynaa
saas darteed aniga oo Maxamed Cawaala oo kala qayb galaya farxadan nimanka iskaashatada beeraleyda waxaan ilaalinahay dhammaantiinba nabadgelyo.